إنا إليه راجعون تحسين waxaan u direynaa annagoo ah salaadiinta gobolka Awdal iyo indheergaradka iyo qorbajooga gobolka Awdal iyo cuqaasha waxaan taxsiin u direynaa boqor Cabdillaahi boqor Muuse geerida ku dhacday isaga Allah u naxariisto ehelidiisina sabir iyo iimaan Allah siiyo Soomaaliya oo dhan waa ka taxsiinina arrinka boqor Soomaaliyeed buuha siyaasan taxsiida u direynaa waxa kale oo raacinina Soomaaliya aan moodinay inay dhiig ka dherigtay hadda bay la kala baxday kismaayata ka socota iyo meel walba waxaan leenahay hal la joojiyo dhiigga Soomaaliyeed ee meel walba daadanaya dhiigga Soomaaliyeed ee dhacaya reer walba uu ka dhacaya hal la joojiyo kismaayo iyo meelihii kale imiga cusubba intaana talaan ku bixinayna wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maanta halkan suusudan salaam buu soo sheegay waxaan soo fariisanay inaan tacsiyayno geeridii ku timid boqor Cabdillaahi boqor Muuse ee shalay qarna lagu aasaayay dhammaan ehelkii iyo qaraabadii ka geeriyooday caruurtiisii iyo xaasaskiisii walaalihii dhammaan reer qardho dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay samiriye baan Allah ka siiyo boqorkana waxaan leenahay naxariis janna Allah ka waraabiyo aad baan u tacsiyayna dadkii ka tagay iyo dhamaantii iyo bulshadaba taasaan leenahay talabaad waxa weeye sida sultaanku uu sheegay waxa weeyaan bariyahani Soomaali waxa weeye 23 sanadood bay daalanay 23 sanadood bay dhiig dhex socotay maanta waxaad moodaa ama waxa ka muuqata meel la yiraahdo Kismaayo gobolka Jubbada Hoose in ama goboladaasha in kaynu socdo dagaal la isku bursanayo waxaan aad uga bogaadeenaa waxaan ka dardaarmaynaa waxaan ku baraarujeenaa dhinacyada halka isku hayaa inay aqligu shaqeeyo aqligu inuu shaqeeyaan ku baraarujeenaa cid alla cid ku gadaaman ee ama xukuumaha tamcid kala haatayna waxaan ku dardaaraynaa dadka in la kala joojiyo arinta iyada la dhexgalan ku dardaaraynaa waxa weeyaan waxa la xilbay Soomaaliyeed ee xukun bay eeday waxa weeye runtii waxaan xukunkan waxaan leeyahay intuu nin hayaa ma badna waxa suurtagal maanta in mar walba la leeyahay ma garanaysaa looma dhananiyo looma kaleyn waxa weeye maanta maalintii la doortay maamulka la doortay la maanta runtii waqtiga durba ay marayso waan garanaynaa waa 3 sano ama 2 sano la sheegayo iyo in ku dhow waxa weeye intuu nin hayaa ma dheer Soomaalina waxa dishay walaalyeelkii baa dhaqday cid yeelkii oranaysa ma jirto ciidanaysa maanta hebel baa haya ama hebel baa haya maanta iska fadhiyaan bira la tartamayna ma jirto waxa weeye war bariba ninkii noolo waa nabad weeye arinta waxa weeyaan halkaan ay nimankaas ku dul dhareen ku umuleen baa ka muuqata maamulka sameeyay ma garanaysaa Jubbaland waxa weeyaan qolaalkaana markuu meel ku dul dhaco waxa la yiraahdaa waa yeelkii waa laga haraa waxaan leeyahay arinta iyada hal laga taxadiro hal la joojo arinta waxa aqligu ha shaqeeyo ninkii wax tabariya miiska ha tago ninkii wax baan hayaa lina miiska ha tago dadka kale ehelkaan waxaan leeyahay arinta iyada si aqli ku jiro runtii hal looga gurmado waxaan aad uga damqanaynaa daawac lagu gurayo Muqdisho ka gaalka ay lagu gurayo ka garwa lagu gurayo ka Kismaayo buuxa dibashaduna ilaahu ma garan karayn taala arinta waxaan aad leenahay hal la joojiyo arinta aqligu ha shaqeeyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayyidina muhammad inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun allahumma haristo boqor Cabdillaahi allahumma haristo tarakadii uu ka tagay ee dadkii uu ka tagay ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay samiriye iimaan isagana jannadii Allah ka waraabiyo leeyahay allahumma haristo leeyahay boqor Soomaaliyeed buu ahaa allahumma haristo samiriye iimaan waa Soomaaliyeed oo dhamaan ka taasi samiriye iimaan ma leeyahay ta kale sida salaadiintii iga horeysay u sheegeen war waxaan moodayay in Soomaali dhiig aan ka daalay 22 sano dagaal lagu jira oo dhiig hala joojiyo dhiiga dalaadana ee walaalaheena dadka iswalaalaha isdhalay ee gacalka ee ehelka ee wada dhashay hala joojiyo Soomaalidii hore dhaqan bay u lahayd marka nin wax caanaha loo keeno adigu cabiya horta hebel cabal soo jiray waxa weeye xukunka waa in la yiraahdo war adigu hay adigu la isku haneeyaa dib ahasha la isku haneyn waayo oo qori in la wada qaato anigu runta la yiraahdo ma milgabad dhaliso hala isku haneeyo xukunka dad walaalaha leeyahay hala isku haneeyo hala joojiyo dhiiga daadanaya hala joojiyo leeyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون halkan maanta waxaan u soo fadhiisanay waxa muxuu ahaa salaadiintu siday sheegeen salaadiinta gobolku siday u sheegeen tacsi inaanu halkan uga gudbino boqor Cabdilaahi boqor Muuse oo lagu aasay magaalada muxuu ahaa Qardho gobolka Karkaar ayaan muxuu ahaa tacsi u gudbinaynaa waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu jannadii firdawsa ka waraabiyo dadkii uu ka tagay iyo dhammaan Soomaalida oo ka baxay boqorkaasiba in muxuu ilaahay samriye iimaan ka siiyo ayaan muxuu tacsidaas ayaan halkan muxuu ka gudbinaynaa wax kale oo aan muxuu halkan soo fariisanay ma jirto sida salaadiintu sheegeen ama ay raaciyeen waxaan ayideynaa oo aanu muxuu haddaanu nahay ama aqoonyahankii ama qurbo jooga muxuu gobolka Awdal in aanu waxaan ayideynaa hadalka muxuu salaadiintu ay soo jeediyeen u soo jeediyeen Soomaali iyo dhiigeega daadanaya hal la joojiyo khaasatan gobolka Jubbada Hoose dhiiga ka socda iyo ismaandhaafka ka socda waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo muxuu aqligu shaqeeyo muxuu laga waantoobo maamulkuna sida uu sultaan muxuu salaadiintu ka dhawaajiyeen muxuu maamulku in yar buu jiraa waxaan anagu kulli muxuu ku talinaynaa in maamulka sidii muxuu wixii dimuqraadiyad ku yimid sida muxuu yani maamulkii laga soo shaqeeyay inta badan muxuu lagu daalay in muxuu maamulkaas muxuu lagu ixtiraamo loo daayo waqtigiisa la siiyo sida dhiiga lagu joojiyo ka bacdina la isugu yimaado muxuu miis oo muxuu marka ugu horeysa dhiiga la joojiyo ka bacdina maamulkaasna lagu ixtiraamo muxuu meeshiisa waa maamulkii muxuu sida dimuqraadiyadda loo doortay oo hogaaminaya ninka la yiraahdo Axmed Madoobe ayaa kulli muxuu sida kaliya wax ku dameeyaan anagu saasaanu aragnay marka ala kulli xaal in muxuu sidaas dhiiga lagu joojiyo la isku samro la isku tanaasulo intaas ayaan u soo jeedinaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa inna ilaahi raaji'uun halkan maanta waxaan u fadhinaayeen gudbinaynaa inaan gaarsiino eheliyadii iyo magaranaysa Soomaali dhamaanba tacsida ugaas Cabdilaahi ugaas boqor Cabdilaahi boqor Muuse oo ku geeriyooday ama lagu aasay Qardho waxaan leenahay eheliyadii qaraabadii iyo magaranaysa in iyo haweenkii iyo xaaskii iyo magaranaysa caruurtii sabriye baan Allah ka siiyo Soomaali way sabriye baan ka siiyo dhammaanteed Soomaali sabriye baan Allah ka siiyo isaga jannada Allah ka waraabiyo jannada dawsiina ku macsuum ilaahay uu naxariisto midda kale tan magaranaysa in salaadiintu ka hadashay iyo qurba joogkuba ama mutacallimiintu Soomaali iyo dagaalada ka socda koonfurta Soomaaliya ama Kismaayo waxaanu leenahay la isku samro dhiigana la joojiyo dagaal wiil baa kuna wiil kuma dhasho waxaanu leenahay hala samro oo la isku samro oo hala dhaafo magaranaysa qoriga iyo dilka muddada faraha badan la Soomaali ka socday waxa la faa'iido la gaaraya bajira assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan tacsiideynayaa anigoo ku hadlaya magaca qurba jooga reer Awdal oo aan maanta anigu joogo magaalada Boorama aan la joogo salaadiintii ila siiyay fursadan inaan aniguna kelmadeeda ka yiraahdo boqor Cabdilaahi shalay lagu aasay magaalada Karkaar ismaamulka Puntland waxaan ka tacsiideynayaa dhamaanba dadka Soomaaliyeed boqorka dhintay wuxuu ahaa boqor Soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaahay sameeyay iimaan ka siiyay helkiisii qarabadiisii reer Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed haddii aan u gudbo kelmadda kale iyaduna ay ka dhawaajiyeen salaadiintu dhiiga daadanaya Kismaayo runtii anigu intaan joogay waan dareemayay in waayeelka iyo waxkaradka reer Boorama ama gobolka Awdal ay aad uga damqanayeen dhibaatada waxa kaloon dareemayay inay lahaayeen ama ay aaminsan yihiinba in maamulka Kismaayo dhisan la taageero Axmed Madoobe way jirtaa dawladii in dawladdu ay qaybteeda ka qaadatana way leedahay marka dawladuna waxaan jecelahay inay ka qaadan doonto qaybteeda oo aanay marnaba
ka joogeen inay qaybteeda ka qaadato laakiinse waxaan leenahay ha la isku tanaasulo dadka walaalaha isleenaya ha isku tanaasuleen nabad ha kusoo dabaaleen maanta waxaanu joognaa maalin dalkii dib loo dhiso laakiinse maalin dib loo dumiye ma joogno wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh